السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada bayaan media muuqaalkiina maanta waxaan kula wadaagi doonaa soo qalbi taabad leh taas oo ay cashiro iyo cibrooyin badan gudaheeda ku sugan laakiin ugu horeyntii naga mid noqo oo ku soo biir asxaabtan ugu xiran hadaa YouTube channel laga daawaneysina subscribe na soo dheh hadaa page kan laga daawaneysina follow na soo dheh daba saaxiibayaal sidoo waxa ay ku bilaabanaysaa nin ayaa wuxuu u waayay lacag oo uu iibiyo daawo hooyadiis oo daa oo aad u xanuunsan kadib waxa uu go'aansaday inuu taleefanka ka waco saaxiibkiis oo aad ka u jeclay waxa uu ku yiri saaxiibkaygiiyo hooyo ayaa iga xanuunsan mana haystay lacag aan daawo ugu iibiyo saaxiibkiis waxa uu jawaabay hagaag bal isoo wac galabta sidii ayuu yeelay galabkii markii la gaaray ayuu wacay saaxiibkiis balse taleefankii saaxiibkiis uu dansanaa dhowr mar ayuu ku celceliyay ilaa uu ka daalay welina uu dansan yahay taleefankii saaxiibkiis haddaba saaxiibayaal ninkii waxa uu go'aansaday inuu raadiyo qof deemiya daawada lacagteeda balse nasiib darro ma uusan helin qof deemiya wuu wareeray waxa uuna dareemay in dunida oo dhan ciriiri ku noqotay ninkii aad ayuu uga murugooday xanuunka hooyadiis haya iyo lacag la'aanta asaga haysata xitaa uusan kari karin iibinta daawada hooyo loo soo qoray oo ay u sii dheer tahay niyad jab oo kala kulmay saaxiibkiis oo taleefanka ka dansaday falkan oo kalena oo uusan hore uga baran ninkii asagoo niyad jabsan ayuu ku soo laabtay gurigii waxa uu arkay hooyadiis oo hurdo wacan hurtiisa nafsina uu ka muuqdo daawo ku jirtana ay agtaalo waxa uu weydiiyay walaashiis oo iyadana ka ag dheereen yaa keenay daawadan gabadhii waxay ugu jawaabtay saaxiibka hebel ayaa noo yimid waxa uuna qaaday warqadii daawada uu qorneed hooyo waxa uu noo soo iibiyay daawadii wax yar ka hor ayuuna baxay ninkii wuu uwi farxad darteed isagoo ilinta cishada ayuu guriga ka baxay waxa uuna si degdeg ah u raadiyay saaxiibkiis ugu dambeyntii ninkii wuu helay saaxiibkiis waxa uuna ku yiri waa ku soo wacay galabta taleefankuna wuu ka dansanaa maxaa kugu dhacay saaxiibkaygiiyo saaxiibkiis ayaa uu jawaabay waa ka xumahay saaxiibkaygiiyo waayo taleefankaygii ayaan iibiyey waxaana daawo ugu soo gaday hooyadeena ninkii inta isceli waayay ayuu saaxiibkiis isku duubay asagoo ooynaya yiri saaxiibkaygiiyo waad mahadsan tahay waxaan kuugu abaalgudana garan maayo rabbi waxaan kaaga baryaa inaad ku noolaato nolol farxad leh sanadiisana aan ku rafiiqno anigii adiguba haddaba duruucda sheekada waxa aynu ka fahmaynaa in saaxiibadu dhabta ay yihiin kuwa ku garab istaaga maalinta adag haddaba saaxiibayaal ma jiraa qof markii aad dhegeysto sheekadan aad soo xasuusatay ugu dambeyntii muuqaalkeeni maanta halkaas ayaynu ku samaynaa saaxiibayaal waa inoo iyo muuqaalka dambe